وهكذا صار عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أدونك درجات لكوريو إليه أو عمل كيسة هين أدون ماذا كم درجات كيسة الله كرو قاضي مركز لي إلهي ومحنكو جار هيركان مركز واحد ليه بدعاء ولدك الصالح ولدك الصالح الدعاء دي سأوجد أي كرلو قاضي درجات كان درجاتك كور لو قاداي ما aha mid uu shaqayst ma aha amal wasiga leeyimi markuu yiraahdo maxaa kor la igu qaaday jawaabtu waxay noqotay in la yiraahdo ducada waladkaaga saalixa darti ayaa kor loogu qaaday waa wax weyn marka in waalidka loo duceeyo laakiin kan duceynayana uu yahay walad walba ma aha walad saalixa walad saalixa oo suuban oo wanaagsan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala adeeca oo ku dhaqma diinta islaamka oo mustaqiima hadii awlaadaada ay noqdaan kuwa saalixiina waa nicmo aad u weyn waa kasbi aad kasbatay oo aad u weyn walidaalika waxa la rabaa waalidiintu ku dadaalaan inay caruurtooda saalixiin ay noqdaan sidii u noqon lahaayeen inay kula dadaalaan oo hamiga iyo culayska ugu badan ay saaraan inay tarbiyayaan ilmaha tarbiyadooda in lagu dadaalo zamanka hadda aan joogno waa cagsi waxa aad loogu dadaalaa sida ilmaha adduunyada loo bari lahaa taas aad loogu dadaalaa sida maaragtay u noqon lahaayeen injineero xagga dhismaha iyo xagga elektarooniga jaanib walba sida ay takhaatiir u noqon lahaayeen ayaa lagu dadaalaa hamiga ugu weyn laga leeyahay waa maxay waa xogaa yar adduunya in laga helo hami aakhiro kuma jiro meesha la aakhiro laguma helo in injineer la noqdo hamigoodu waxa way dhaqaale adduunya in la helo ka soo qaad marka inuu injineer noqdo ama takhtar uu noqdo xogaa adduunya uu soo aruuriyo natiijadu waa maxay natiijadu waxa way متاع الدنيا قليل نلاش الدنيا روح اسكير وح بابا ايو الى الزوال بابا ايو لكن ولدك صالحة وعمل صالح وكاهري هداد دمته إيه هداد نوشها بأجر فربنا كوصل دعاء ودعينايو أصيغ صالح إلهي وكاقبليا وأذيك كود دعينايو والدك حدوثا كود دعين عملك أو سمينايو صومك أو صوميو صلاة أو تكنايو قرآنك أو آخرينايو ضمان أعماشها صالحة قيبت كلها وبعد موتك إذا أجر كاقم متقو آيما هدي إلهي كوما الناس سبحانه وتعالى أولاد صالحين وذا الدنيا أضغطكتو ولذلك مركز فيرسو ضدك الصالحين تأه ويوه الريان أنبياء عليهم الصلاة والسلام هم قوة وحي ساري جرين إني عرورة تربية وجدد قوة تربية عرورتي قد ذلك جرين تربية ما هكلي الله قاتم ما تربية والنوع يبضنتا المها إلا الديرو الله لدول تاقنا لما تربية وحي كبلا بتا حقي كبلا من يسا تربية ده أساسك هذه مركز جور دون يسو أترى هذا كريم من قرحان ليسو رادي أو الدين بقى كفكرين متارك الصلاة لغوكين وأنتو كني جورجانا متو كذا يالو صاصاراي المها ضوحي نقانا يال أيضا وهل تلد الحية إلا حوية أبيسا مرش إلا أبيسا يرمويا هذا هو أبيسا كنت أبيسا يقول له هذا مدلي إذا كنته أخلاقيا دينيا وحي صار سوح ليت أخلاقيا دينيا لا بد وليت haddii aad marka ugu horeyso guursanaysa aad iska fiiriso aasaaska diin ku dhisto sida nabiga ugu booriyay sallallahu alayhi wasallam caruurtaadana waxay noqonayaan kuwa ahlu diin sida qaalibka maxaa yeelay ilmaha waalidkoodu waa ku daydaan markaad magaalooyinka tago waxa arkaysa ilmo yar oo 3 sano jira ama 4 sano jira oo geesaha ay u xiran yihiin hooya gacanta haysta wadata ayda geesaha u soo xirtay labada dhinac ay u xiran 3 sano jira mid kale asoo 3 sano jira ayaa mobile inta loo dhiba hees loo shidaaya 3 jir 4 jir wuxuu ku barbaaraya heesahaas ku barbaaraya wuxuu moodayaa heesta wax la dhageysto wax ugu fiican inayta geesaha la xiirtana inay bataa dariiqa ugu wanaagsan oo la maro ilmahaas ilma dhintay waa hadii marka hadhowti raga qaar waxay sameeyaan marka hore la iskama fiiriyo kadib anta gadaal laga shalaayo ay wuxuu leeyahay waa furaya islaantii waa kala tagayna maxaa yeelay diin xumo ay keent marka horna diin xumada ku guursaday mid gadaalka maysan keenin wuxuu ku furaya 2 caruura ama 3 caruura caruurtina ayada haysat maxaa soo kordhay wax ku soo kordhay ma jiraan maxaa yeelay ilmihii gacanteedii ku jira ayada sii fasahaadinaysa waxaan ogaataan hooyadu madrasa waa hooyadu madrasa ilmuhu ay ku tarbiyoobaan ay ka soo baxaan oo ka soo takharujaan inta yar yihiin ayada gacanta ku haynaysa ayada barbaarinaysa wax badan oo tacliimaad hooyadu ka qaadana aabu haduu fiican yahay waay markaan saas khitaabka u jeedina hooyadu liidato marka qaar aabayaasha liid asiga waxa laga yaabaa jaad sigaar inuu cunayo ilmahan uu leeyahay jaadka looma dhawaa karo jaad cunuga cuno waa ama waa xiraya ama waa garaacaya waa dilaya asigana waa u baraxan yahay wuxuu leeyahay shaaha la soo kariyo inta jaadka guriga keen salaadii waa gadaalka gaar ama ma tukado xunkaasoo kale caruurtu soo saaraysa noqonaya wax liitu soo saaray ila asal liite كو مركا إن أساس كلا صحة تربيته كبلامته مركا وجهرس فاظفر بذات الدين تربت يمينه ما شهرتك صح مركا كواد هذا يقروح الدين إسكهري مالان دين كهرمري هذا الدين يمال إسكهري مالان دين كهرمري مرول بمد الدين كلا قادو كلية النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين حديث كلا صوك عبر يوحي هذا الدنيا متاع وخير متاعها حديث مركا أفير ستمعني سوى حديث آذو حل الدنيا نرشة وحا وخير بدن بوير المرأة الصالحة صفاتها سيودتها وهوين صالحة كو مركا إن أساس قال الصوت
لبو إلى إلهي كبرضو إنه أولاد صالحين كسيو هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ذرية محكسي فيه طيبة ذرية كليكم قابس وحو إلى إله عرور وناكسن إسي حدهن إله عرور إسي كليا عرورتك وحا كجرة إني جيران وحا كخير بدن إني سنجرين هدي إلهي كسيو كوا مفسدين في الأرض أو ضدك اللباتين أو ودوينك قوين أو مال والبدية اللباتين دكنا كوسو هوين كواس إني دنتانا كخير بدن إني نولادان مرك عرور وناقو ماها وناقو إني كوا وناكسيهين قرة العين إني يكون نولادان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين زكريا عليه الصلاة والسلام مركو كشيغنا يدأذي إيوايل لمدي صاحة لا شيء أصعر الآن موصل له إلهي ولد إسي كريم موصل له ولد كصفاته كصفي إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يرثني محوك دحلا يا أسيغا وحوك دحلا يا النبوة نبي النمدي علمي بوك دحلا ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا ولا صفاتك على أي كد عيستي إن إلهي سي سبحانه وتعالى الله نوحو سي يحيى ابن زكريا نبي من الأنبياء أي إلهي سبحانه وتعالى وبشاري الدنيا وح إلهي كسي سبحانه وتعالى في الدنيا وح أو خير بدن أو في عن أولاد صالحين إن إلهي كسي أولاد صالحين وح الدنيا لقوا هلا أيها أو في عن لكن وين صالحين وكوا وناكسن أيهن أو لقوا تربية لقوا بربارية برشة دين الإسلام أنت يريهن أو يكون برباران ملازمة مساجد صلاة إنك غيب قلان مساجد إن يمادان لبس كإسلامي إن يلبستان ضدك وناكسن صالحين تا إن لفريستان هذا الذي أي دقيستان ما لها قرآن كله آخرنا ay tagaan oo waxyaabaha ilmuhu ay ku dhaga qaadayaan ay ku barbaarayaan hadda adigu dadaasho marka dadaasho juhdigaaga bixisa kadib ay cunugu weynaado markuu weynaado qaan gaar wixii ka dambeeya haduu fasahaado adigu dadaalaya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha hidayadu wa min Allah adiga laakiin waxa la rabaa asbaabti in la timaado asbaabti ilmuhu ku hanuuni lahaayeen ay ku wanaagsanaan lahaayeen waa in la timaado guriga waxa looga dhaqmaayana ilmuhu saameynay ku leeyihiin waalidku waxa la rabaa gurigoodu inuu noqdo makaan cibaado inuu noqdo oo ilmuhu ay arkaan ayadoo guriga dhexdiisa waalidku ku cibaadeysanayaan quraanka akhrintiisa sunnooyinka tatawuca oo guriga lagu tukado waxyaabaha akhtaada ah oo ilmaha lagu arkayo laga saxo laga toosiyo waxyaabaha wanaagsan oo lagu booriyo haduu sameeyana lagu dhiirageliyo wixii wanaagsan oo sameeyo lagu dhiirageliyo waa arin aad u fiican marka tarbiyada noocaas in ilmaha lagu la dadaalo waa muhiim haddii marka waalidka uu saalix yahay awlaadiisana ay saalixiin noqdaan quraanka tafsiirkiisa waxaan ku soo marnay fil janna inay isku darajo noqonayaan oo xataa haday caruurtu darajaad hooseeyaan oo amalkooda uu geeyo darajaad hoose in Allah subhanahu wa ta'ala uu ugu darayo inta kale ayadoo waalidkood la haleeshinayo waa nicmo aad u weyn alhaqna bihim dhurriyyatahum caruurtoodan haleeshinayna wiir Allah subhanahu wa ta'ala waalidkii caruurta isku darajo laga dhigaya maxaa yeelay barwaaqada iyo nicmada ahlu jannaha ku jiraan waxa u dhameystiraya markay caruurtooda meel ku nool yihiin ay arkaan ilmihi ilaahay si subhanahu wa ta'ala caruurta ay dhaleen iyo ayaga markay isku meel ku noolaadaan noloshaasuna ay tahay mid abadiya oo tafarruq iyo kala tag uusan ka dambeeynin hadda adduunyada si kasto waalidkii iyo waalidku isku jecel yihiin maxaa ka dambeeya tafarruqa ka dambeeya waa la dhimanaya ma waalidka hormaraya ama waalidka hormaraya ama waa isla dhimanaya marka qaar ala kulli waxa u dambeeya waa in la kala tago waxa u dambeeya waa in la iswaayo laakiin maalinkaasi fil janna waxay ku sugan amni taam ah oo waligood ma isku meel ku noolaanayaan ciriiri aysan arkaynin dhibaato تعبك الدنيا لو أركا يسن لكل مين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله وعوها نرأد زهد بدن عالم نواها عالم أمير أيوها أصو أميرة ضد كان مامورة إمارة حكم كان هايستا أيوها دان زهد يقول أدو بلنا وحي المأذير أهايان هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الملك وحد علي عبد الملك بن مروان عمرنا وحد علي عبد العزيز بن مروان وحي إلى علماء هشام بن عبد الملك عرورتي سوح أغتغي هنتي بغرطويدي ملكي أيو قداف لكن عمر بن عبد العزيز عرورتي سواك إلالي وحاس حكم كنا كإلالي هنتدي أمضوا أي لهايد إمارة يمامل كلجو ذي إنه عرورتي سكوب بحيانا أما أوصينا وكإلالي مركي جيرده أصلا حاضرت عمر رحمه الله أي عرورتي سوي مادين أيوة طمع وججره إنه قدر دارم إمارة أسيق قداشي وأسيد هذا الوية قينا ملاحظة وإنك ملاحظة مركو جيرده أصلا حاضرت أما حكم كوكدة يروح وكبدل أسيد غالب كمتكو ضلي أيو جعلها إنه كبدله هذا يسن إيمان وحكه هرستاجه ويلش مركي طمع وحوجري إن أما أمال بدن وقتها وقدر دارمه أما أملك جي بغرتو
لكن لبض منا ميين عمر عبد العزيز والله الله وحر يا أبنائي إن كنتم صالحين والله يتولى الصالحين وإلى شيء ذي وهدات صالحين تهين صالحين إلهي وأرمه هذا التولي إلهي ما ضيع عيادتك صالحين تعداد صالحين تهين وإن كنتم غير صالحين فلا أعينكم على معصية الله هذا صالحين أهيننا إذن كوك المين ما يوير معصية إلهي لبا مدوا يوير إن صالحين تهين هذا صالحين تهين إلهي إذن ضيع مايو أنا أروح بإذن ما يوحنا إذن سينا إلا مار هذا تهين كوان صالحين أهين ومفسدين آتهين هنتيذ الأمة كوفة سهادي لهايدان إلهينا أتكو عاصي لهايدان أنا إذن سي مايو حكنا إذن ديبي مايو إذن كوك المين ما معصية إلهي هلا يقتقوي ويلشي ساسون أدونا أدر دارمن أو نقالي مال أدر دارمن ملكنا أن أدر دارمن وسكدر لكن وحي راي علماء نسلي يا فرعي عمر بن عبد العزيز وحي النقدان ضد هنتي ليالا عرورتيسا يكوب يسير لين وحي النقدان تجار وحي النقدان ضد نقالة فربضان له قولدي هشام بن عبد الملك كفر عنتينا واجد دم وحي شحادي جيرين قولدي عمر بن عبد العزيز كفر عن أي شحات كودون جيرين كوي هشام هنتي ضوا بعض إلا هنتي مركورة وحي هاي صفة وناقصان على وبحين ملكي بورتويدي وحي وازولين وحي أقع مهورسن جيرين قولدان كل تا معناه وحا وايبنا علماء عمر بن عبد العزيز صلاحي سي وناقيسه آثار الراد وحكوية شي فرعيس هشام بن عبد الملك لما دام وصل صلاحاس لهين عرورتي سنة أو الدنيا كلا دبا أردي إلهي سبحانه وتعالى وحكونا رغمي بنقيض قصده ما يسنهل وحي عرورتي سؤول الرب هي فرعيس marka dadku haday wanaagsan yihiin ilaahay ma dayaco subhanahu wa ta'ala adduuniya aakhirana ilaaha iskale fakirka marka ah in caruurta laga fakiro maxay cunayaan iyo maxay noolaanayaan iyo mustaqbalkooda laga fakiraya mustaqbalku waa midka aakhiro mustaqbal waa ki aakhiro adduunyadan mustaqbalkeedana ilaahay baa haya subhanahu wa ta'ala allahna wuxuu ballan qaaday qofkii ka baqa inuu san dayacin bal inuu irsaaqayo meelo san filanayna uu ka irsaaqayo waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib rizqiga ilaaha bixiya ilaahana u ballan qaaday meelo san إنه كإرزاقه الله سبحانه وتعالى وحير وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك لا نسألك رزقا نحن نرزقك أهلك يريرك واحد أمر تابع للنبي محمد صلاة أظن كالصبر عبادة إلهي طاعة إلهي رزقك ويديسا منه أنك إرزاقي النبي الله سبحانه وتعالى أنا رازقة رزقي وحا أبا أنت أنا إذن سيني أنا هل يعابد وبلنقات والله لا يخلف الميعاد إلهنا بلنقاتك كما بحث سبحانه وتعالى مرك خير الدنيا والآخرة وحكجرا في طاعة الله عز وجل إن طاعة إلهي أكد داشو أي الدنيا آخرة بكجاريسة لكن هم قال إن الدنيا دبركتو تاسي آخرك وهلمام سينيسا آخرة هذا هلمامتنا واد خسارتي في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة لبض وخساريسا عرورته إن لا تربيته أدها لو جد داره سأي بري كود دعيان دعاء هذا صايع صالحين إن كود دعيان دعاء إلهي وأقبليا هذا يسون كود دعيان وصالحين أما وقت يسون كود دعيان أيوة صالحين عمل كصلاح أي سمينا يلفت كل أجر كل هذا مروى البصدقة جارية كو صعطة مروى بعمل صالح أي كو صعدون جوينين هذه عرورته هذا أي صالحين رجع أنت مركه هراء سئن دلعانا كوجر جورك كدي من جدال كشليني وأنا دعوة إن بدر رجع بدر حتى ودادها اسكت تورا جورك رجع اسكت تورا أصلا كفير سن أيقول لي هاي ذاك تاسي قبل داسي كمان سأله وقرحانتا صفات كذا خلقك أيو فيرنا يا متك خلقك ما فيرنا سيد إلهي وأبوره سبحانه وتعالى أيو في تاس هذا واحد إلهي وأبوره لكن آوى كي خلقه الدين كها آوى هذا الدنيا ده مدة أقول قرحان أي سندين لهين وحيكون قشلمار قروح ده يضوى قرد ميراد وحقيمة مله قيمه هو دينك علماءنا قروح الله يقيبيان جمال الظاهر هي جمال الباطن لبدا قروح وحا مهم سن مدى باطنك ومدى دينك تا اسكفيري تنكلا هدي صور راعدو ونور على نور لكن مدى أصلا مدى دينك أصلا تن دينك اسك حوجي مرك فاظفر بذات الدين تربية يمينه دينك هذا أخلاق هذا جانبك إنا كفيري صح أي آدي آد مهم قولك وحواي ومستقبل لديسايو وقويس لديسايو وأساس لديسايو وحلقفوض هذا ما أساس كاسمرك إنا دنك دينك كفيرسو wax aad iyo aad u haboon qofkuna hadii diin ahaan ay u wanaagsan tahay hadaa qof ahlu diin taala ka raali noqonay laakiin haday diin ahaan u liidato adigana aad qof mutadayina tamis hayn kartaan hadii salaadi dood ka taaganta soomkii uu dood ka taagan yahay adigu markaad quraan dhageysanayso ayadoo ay hees dhageysanayso ayadoo caariyado qaawan ay suuqyada iyo shawaaricda marayso suuragal ma aha qof diin la inuu ka raali noqdo ama uu hayo marka ka fiirsa intaadan ficilka sameyn intaadan qoyskaasi gelin iska fiiri akhbaarteeda iyo ahwaasheeda marka hore iska hubi say diinka u dhaqantaa qof wanaagsan ma tahay xagga diinka xagga xijaabka ku dhaqanka diinta islaamka jawaanibtaas oo dhan si hadhowti gurigaaga uu noqdo guri diineed guriga haduu guri diineed noqdo ilaaha barakeynayo subhanahu wa ta'ala guri barakeysan uu noqona wuxuu ilaahay barakeeyana hada wax gaar ma leh wuxuu ilaahay barakeeyo subhanahu wa ta'ala waa barakeysan barakaduna waxay ku imaan kartaa diinka ku imaan kartaa iyo ku dhaqanka diinta islaamka
ku dhaqanka diinta islaamkana meesha koowaad la rabo in laga aasaaso waa guryaha haddii gurigaaga diin ahaan u liito maxaa bannaanka doonaysaa bannaan waxa aad waa qalad maxaa yeelay gurigaaga liita aasaaskaaga liita marka tarbiyadu waxay ka bilaabanaysaa ikhtiyaaru zawjati saaliha yani guurka marka intaadan gelin ka hor zawja saaliha inaad raadiso aasaaska koowaad ujeedada koowaad inay noqoto loo baahan yahay